inuu isku tiiriyo oo isku hadleeyo qof kale oo dibadda uga imanayo inuu mashaakilkooda u xalleeyo waa aad bay nacasnimo u tahay aad iyo aad inaad sugtid ama ha noqdo gaal ama ha noqoto hay-ad khayriya ama ha noqoto organizationno kale inaad adigu aad tiraahdid halkaasaan fadhiyaya waxaan sugayaa intuu qof mashaakilkayga oo mashaakilka jaaliyadda iyo bulshada xallaynayo dee aad bay u xun tahay dulqarnayn markaa dadkii daris buu damcay inuu baro qaala maa makannii fiihi rabbii khayrun ilaahay wuxuu i siiyey ayaa ka fadli badan oo ka khayr badan waxa ii sheegaysaan waatuu nebi sulaymaan markay balqiis ay tidhi hadiyad baan u dirayaa bal waxay kaga soo war helaan ay war inooga soo war celiyaan baynu eeganaay basuga qaala atmidduunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayra mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun wuxuu war maan aniga lacag siinaysaan maana xoolo u baahan tu ilaahay i siiyey ayaa ka fadli badan dulqarnayn markaan wuxuu yidhi fa aciinuunii biquwa war idinku icaawiya aatuunii zubar alxadiid zubar alxadiid waa maxay marka waa biro xadiida labadii buurood ayuu dulqarnayn raximahullah labadii buurood dhexdoodii buu ka buuxiyey xadiid dadkii buu yidhi shaqeeya askartiisii umuu dirin oo muu odhanin lacagta isiiya dahabka isiiya daamanta isiiya baatroolkiina isiiya anaa idiin dhisaya halka iga daawada hadhowna marka idinka tago waa idinkaasa isdabara may idinku wax qabsada buu yidhi idinku ha laydinka helo shaqaysta fa aciinuunii biquwa war xooggiina igu caawiya waxaan idin diro ka soo baxa dariska aynu ka faa'iidnaa markaa waa maxay waxaynu ka faa'iidaynaa halkaa haddii aynu doonayno inaynu bulshada soomaaliyeed inaynu badbaadino oo ay meel gaadhaan inaynu isku hadlayno educationka systemka ee waddanka jira ma aha inaynu isku hadlayno caydhan waddankan uu bixiyo ma aha inaynu isku hadlayno systemka waxaan la yidhaahdo court system ee caruurteena jeelka ku afuufaya ka buuxiyey ma aha waxaa loo baahan yahay haddii la doonayo inay jaaliyaddu isku taagto lugaheeda inay dadka ka mida jaaliyadda ee bulshada inay ayagu soo kacaan ay wax u qabtaan inay idinku wax qabsataan ayaa loo baahan yahay inaad tidhaahdaan sheekh maxamed rooble ama sheekh mustafe ama sheekh ummal ama sheekh dirir ama sheekh hebel ayaa noo imanayo mashaakilkayga xallaynayo raggan iyo dumarkan isfuraya indawo u haya dhallinyaradan lumay mid baa loogu yeedhi wax u akhriyo way hagaagi oo dabadda aynu madad ka dalbanno xal ma aha xalku waxa weeye inuu idinka yimaado idinka oo la yidhaahdo war maxaa inoo tala anigoo garanaya waqtigu inuu isgurayo caruur fara badanna meesha joogaan dumar marwooyina in badan ay meesha fadhiyeen rag waayeelina meesha ay joogaan waxaan jecelahay inaan soo gunaanado dhowr nuqdood ku soo koobo war maxaa xala kow ta ugu horeysa xalka lagaba maarmaankii waxa weeye alwaxda ina la midoobo waa lagama maarmaan xal kale ma jiro meel kale oo laga doonaya xal oo loo odhanayo taasay inoo dawaa oo aan taahay ma jirto ama ha noqoto waddankii ama ha noqoto halkan ama ha noqoto North America ama ha noqoto meel walba innaka oo iskaashana mooyaane waxba inoo hagaagi maayaan carabaha inta badan waan wada tegay waan soo wada maray yurubna waan tegay intooda badan maraykankana waan tegay soomaalida meel qura ayaan ku arkay dad soomaaliyeed oo isku duuban waa dadka inaga jooga Kuwait soomaalida Kuwait joogta
intaan anigu soo maray meelo kale laga yaabaa in wax ka soo ka muuqdaan laakiin dadkaasi waa dadka qura ee isku xidhan maxaa dhacay marka waxaa dhacay inay dowladda Kuwait ay taqdiir siiso ixtiraam ay siiso mas'alad wala ku saabsan Soomaalida ilaa ama xitaa ajaanibka ilaa Soomaalida lagala tashado qaraar ma gaadhaan dowladda Kuwait qaraar ma gaadho ayagay la tashataa qawaaniinta lagu soo dejiya ajaanibkana dowladda Kuwait Soomaalida way ka socda waxay raadaan waa dad is haysta oo meel ka soo jeeda waa dowlad qura waxaana jooga Soomaali aan aad u badnayn maxaa inaga jabinaya oo inaga burburinaya waxdadeena waxyaabaha waxa kamida anigu waxaan la hadlayaa dadkan muslimiinta ee masaajidada jooga ee muhaadaraadka imanaya waxaan ka hadlayaa arrimaha waxyaabaha ugu horeeya waxa kamida xisbiyo diini oo la galo anigu waxaan arkaa inay yihiin arrimo laga wanaagsan inay tahay in laga wanaagsan yahay oo hadaynu noqono kullu xisbin bima ladayhim farihun oo qolo walba inteeda durbaanka u tumato oo tiraahdo annako magaca la ilaahada groupkaasan haysana intaas noo xareysan oo madhabka iyagu waa caynkayo manhajka iyagu waa caynkaaso de ma anzala Allah biha min sultan ilahayna wuxuu inna hadhihi ummatukum ummatan waahida tan waa ummaddiina waa ummad qura Umar bin Khattabna wuxuu oran jiray al-mu'minu dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi qofka mu'minki kaligi waa dhaif ونافته ووليته لكن ولا الذي مركز بربر تاغو قوت بوليه حديث حسن كان وحوي النبي يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية درواغو وحوار أريا كعنا هلكا وقبح هذا هلكا وحرت هلكا تستاكتا أما اللحظة هلكا استاكتا أيو درواغو لبوده إنكم مركا إسكالا جويني oo kala fogfogaanay cid waliba cadow waliba horta wuxuu oranaya waa victims Canada bal u fiirsada Canada nin baa doonaya inuu siyaasiyo gaala waa gaal waa doonaya votes buu doonaya Soomaalidii buu yimi Soomaalidii baa tiri waan annaku ku food garayn mayno caynkaasaan u food garaynayna waayo ma aaminsan mabaadi aad adigu xambaarsantahay wuxuu ugu jawaabay ma garanaysaa ha ka warwarina buu yiri reer hebel bay la socdeen waa nin gaalo cad hada wuxuu yiri reer hebel ayaan ku talaalayaan oranaya reer hebel bay iga soo horjeedee idinku isoo raaca innaka bayna lagu ciyaaraya hada waa gaal waayo waxay garteen fikrigeena iyo caynkanu nahay iyo meelahayna laga cuno ayay garteen marka oran maayo ninkan mabda uu iga soo horjeedayo waa Soomaali laakiin wuxuu yiri waxaan ku jabinayaa dadka iga soo horjeeda reer hebel baan oranayaa waa dadkaas qoladaas iga soo horjeeda isoo raaco markay reer hebel maqlaan way soo raacayaan si kale ma jirto ki gaalka ahaa ayaa nagu dhaansanaya awrkiisa marka harakaadkan أورانيا رير هبل بانو نوع من القبيلة وقبيل عصب هل كي واحد يقان رير هبل باطي أدنى رير هبل باطي أما دقمدا ساطي عن إمي كان واحد لن يريدي يولادي أصوب بحي حركات داسانو نهي حزب داسانو نهي سيدا سانو نهي واش قبيل كيو شارك للصوحي لي نبي صلى الله عليه وسلم حيري تركت فيكم شيئا إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا الله بس بيدن كتجة هذا هاي ستان بويري وريجين ملو ميسان كتاب الله وسنتي كتابك إلهي إيوه سنة ديدا في حديث حسنه ابن تيمية وحيري عليكم كتاب الله وسنة عترتي سنة ديدا السنة الرير كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مو أرنين حزبية إيو جروبية إيو مقعية إيو ما أنزل الله بها من سلطان ورمركا هالليس إلاليو تكالي وحدد
ay u baahan tahay waxa weeye